قربتشوفته سوماليدو ولا ريارو سودوادا سوماليدو قربتشوفته سوماليدو ولا ريارو سودوادا سوكي وذا هشيو قدي ويسا سامحينو نباتي نو ساماتو سادا شو واقول سوكيه وذا هشيو قدي ويسا سامحينو سمعتو سادا شو واقول وادا الكيني وسو دوادا ساعة بفورا وسو دوادا ولا ريارو وسو دوادا Somalidu kade daratay kabaxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kade daratay kabaxday kuftay kacday jabtay oo kabatay قبيل باكرجي إنك سارينا واكن نبضري واكن مسكو كان واكن قبيل باكرجي إنك سارينا واكن نبضري واكن مسكو كان واكن كريم كان برنا يا كرامة قصرنا كارمي ينقى كريم كان برنا يا كرامة قصرنا كارمي ينقى يا بيري يانا سيادة كروية بيري كارو قالا سيدي كويلة والله قدسه شوفنا كالميسه هديه الوهي يا آها هديه الوهي يا آها ورسخك ويلي بطر هكذا إريقابو هكذا ويولك الصاحب كانت لك بولا وريتك الله هديه الوهي يا آها هديه الوهي يا آها وهجاج آد يا آد أي واحد ذي كم هاد علينا هذا وكوه الله إن جدك قبل قابضة برنامج كان قروح ضبطان أنكسر دوين إنه قدوميها حزب الرماس إسلام مركانا مرشح مدحون النمو هير قرن إدلك الصومالي مدن بشير أمان علي مري وأنك أوديك أودو جولتان magaalada Toronto ee dalkani Canada oo ku aanbaxday soo dhaweynta iyo waliba ka qayb qaadashada guud ahaanba arrimaha geedi socodka siyaasadeed dalkeena caan ku ah ayaan anoo afkiina ku hadlay waxaan leenahay mudan murashax ku soo dhaweey magaalada Toronto iyo waliba dad aad u jecel in ay Soomaaliya hagaagto wuxuu noqon doonaa barnaamij aad u gaaban oo qurux badan oo si wanaagsan loo soo qorsheeyay oo aan yeelin doonin khudbado dhaadheer iyo waliba hadallo fara badan wuxuuna noqon doonaa mid la idiin siiyo waqti murashaxa inaad
weydiisaan su-aalaha aad ka dhexeshaan khudbadda haddii allaha awoodda leh ogolaado uu jeedin doono. marka ugu horeysaba waxaan u yeedhayaa qur-aanka kariimka ah oo barnaamijkeenna ku bilaabanayno. waxaa ayadaha qur-aanka kariimka inoo marinaya haddii allaha awoodda leh ogolaado sheekheena sheekh cabdisamed xasan bare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم ما شاء الله. وحامي مركله مرلبات إيه مرصد حد آد إذا كلام هذا علمنا سيد قرفه بدن مرشحة قدتيسا إيه وليبا دم عيسى السياسة انتبه أم قشان كسوقيب كلكم قرفه بدن آد سميسين marka ugu horeysa waxaan barnaamijkeena ku furan doonaa heeska calanka astaanta ee qarankeena Soomaaliya. aan ka codsado DJ-ga inuu heeskaas noo saaro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم ما شاء الله. وحامي مركله مرلبات إيه مرصد حد آد إذا كلام هذا علمنا سيد قرفه بدن مرشحة قدتيسا إيه وليبا دم عيسى السياسة انتبه أم قشان كسوقيب كلكم قرفه بدن آد سميسين marka ugu horeysa waxaan barnaamijkeena ku furan doonaa heeska calanka astaanta ee qarankeena Soomaaliya. aan ka codsado DJ-ga inuu heeskaas noo saaro. وهجاج واد مهسنتين مركله haddii aan idiin sheego duubidda iyo weliba sharaxaadan quruxda badan waxaa iskale wariye sare al-ustaad mahad carabow saaxiibkay oo ku caanbaxay duubidda barnaamijyada iyo weliba qurxinta goobaha la isugu yimaado. aniguna waxaan ahay mid ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ee dalkani Canada. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan. markii la ii sheegay in aan xiriirin doono barnaamijkan ayaan ka suxufi ahaan waxaan soo sameeyay xog ururin ku saabsan murashax Bashiir Amaan Cali Mire. waxaa ii soo baxday inuu yahay gudoomiyaha xisbiga Ramaas oo isagu uu sameeyay. waxaa ii soo baxday oo kale inuu xisbigu ka qayb qaatay doorashooyin dhawaan ka dhacay dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda koonfur galbeed ee ku meel gaarka ee Baydhabo guulo wax ku oolana durbo uu xisbigu ka soo weeyay.
وأقويها حق دقالها آد وظهر مري سلدق ديجان نوعية دلك سويدن وحو آد قيب ونكسن وقاطي وحبضن وكبدلي يصيروا قدومية وقدقة منهجك وحبرشدة دلك صوماليا بعدما وياها أقويها حق دقالها آد وقوع بحي وحسكودي سيد أنفلينا وليك عن تكوها إن ودلك كهر قليو بنجية إسلامي ووحيابها أن كسو حرتي كصفحيب أهان وحي يسوي إيه شيء معها وحيد كلا إيه شيء تاني معها هدي وحكي خلدينا إساقا أي قبدي سوكو سعيدونا دادك رأي تورنتو وحي عام كويهن قدهان بسور دوينتا مرتدا إيوليبا دادك دونيا إنا جيدو سعود كسياسية دادك وحكا بدلان داد فربضان وأقويهن أي قوبتا فردية وحاد إلا سور دويسان قدوميها جاليدا أما قوميدا بنادرقا دكتور محمد علي الشيخي ومر والبا أن كدالين إن أوكهل لقوبها لقصر دوينيا أما لقوبة قرفونية سياسة بدلك النشيخي بسم الله الرحمن الرحيم أنا وكو هدلا يا مقع قومية بنادرقة وحايدين كل سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاو الشرف وين بييتهاي inaan ka qayb galo munaasabaddan lagu soo dhaweynayo musharax madaxweyne mudane Bashiir Amaan Cali Mire marka hore Eebbe subhanahu wa ta'ala waxaan kaaga baryaa inuu guulkaas siiyo oo aad noqotid madaxweynihii Soomaaliya gaarsiiya horumar marka xigtana waxaa mahad mudan dadkii xafladdan soo agaasimay oo qayb weyn ka qaatay mudane Bashiir jaaliyadda Soomaaliyeed ee Toronto waxaa lagu yaqaanaa soo dhaweynta martisooridana waxay ka mid tahay wax weyn oo diinteena islaamka qiimo badan ku leh nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri qofkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaha rumaysan martidiisa ha karaameeyo waxaa kaloo lagu yaqaanaa reer Toronto sidoo sheegay wariye Maxamed Cabdullaahi Xasan in martida Soomaaliyeed oo aan dareemayno in wadankii ay wax u qabanayaan inaan tusino Soomaalinimadeeni kuna dhiirigelino waxa ay qabanayaan inay u qabanayaan ummadooda meel walba ay joogaan mudane Bashiir haddii aad ku guuleysatid xilka waxaa ogaataa in rajo idinka sugayo wadanka iyo ummadda ilaahay u baahan idinkana idin baahan waa duceynay waa haraartanay waa isdilnay waa isbaabi'inay waxay taagan tahay maanta arrintii ay ka dhawaajisay allah u naxariistaa xildhibaan Saade Cali Warsame heestii qaadi jirtay aan ku taliyay ma ii talinaysid adiga ii tali ma ku talinayay aan wada tashano ma wada tashanayno aan kala tagno ma kala tegayno martida sharafta leh dulinimada waxaanu badayso qabyaalad ma aha maanta waxaanu ogaanay in qabyaaladu ay gudcur tahay waxaanu garanay in midnimada xoog tahay waxaanu aragnay in kala tagga uu xoog yahay waxaanu aragnay in qarannimada ilays ay tahay marka haddaba waxaa loo baahan yahay inaan isweydiino maxaa noo dan ah marka ugu horeysa waxaa inoo dan ah inaan iscafino oo aan isa saamaxno iyo inaan si wada jir ah ugu shaqeyno midnimada horumarka iyo daryeelka shacabka Soomaaliyeed si aan u helno mustaqbal wanaagsan oo ku soo noqon doona midnimada wax kastoo la sameynayana waxay leeyihiin process la maro processkaas in la maro waa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan aragno Soomaaliya oo sinaato oo aan la kala sareynin la kala soocin sina loo kala salooyin mid sadka bursada iyo mid laga bursada midna aysan noqonin Soomaaliya waxay u baahan tahay dawlad ka madax banaan waxyaabaha aan ku burburnay oo ah dulmiga cadaalad darrada heebsooca eexda musuqmaasuqa iyo amaan la'aanta Soomaaliya waxay u baahan tahay midnimo cadaalad iyo sinaan haddii cadaalad la waayo Soomaaliya ma jirayso waxaan kula dardaarmayaa inaad ka shaqaysid
cadaaladda iyo inaad ka shaqaysid midnimada soomaaliya oo aada isku keentid shantii soomaaliya. cadaalad darada waxay dhashaa nabadgelyo daro. cadaaladda waxay ka imaanaysaa in laba kitaabka alla waa marka koowaad oo laga tago. kulligeena waa ka warqabnaa cadaalad darada soomaaliya maanta ka jirto. ma aha midii loo baahnaa oo waddanka lagu hogaamin lahaa oo ummadda isku aamini lahayd isugu imaan lahayd ma ahan. shacab haddaan nahay waxaan u jeednaa dhibaatada dhex taagan ummadda soomaaliyeed. marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo isbeddel ama change. dhammaanteena waxaan leenahay riyooyin iyo himilooyin ku aadan abuurista isbeddel, ha ahaato gudaha nafteeni, hareeraheeni ama waddanka aan ka tirsanahay. si kastaba ha ahaatee tani waxay dhici kartaa oo keliya marka hore la abuuro isbeddel gudaha nafteeni. ilaahay wuxuu ku yiri qur-aankiisa in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim. si isbeddelka saxa u dhaco waa in la kobciyaa maskax miyir qabta oo cilmiyeysan, mid fahma xaqiiqda adduunka ku xeeran. isbeddelka waxaa lagu gaaraa iyadoo maskaxda lagu xoreeyo xumaanta nooc kasta iyo iyadoo la aasaaso asaaska fikirka xorta ah. ilaahay wuxuu aadanaha siiyey awoolo garaad iyo maskax oo suurtageliya inay hogaamiyaan oo ay abuuraan isbeddel. haddii aan la xoojinin xirfadaha maskaxda, qofka wuxuu wajihi karaa caqabado hor yaallo iyo kuwa soo xoog saari kara mustaqbalka ama maareyn kara dhibaatooyinka. meel kasta aad tagtid waxaa laga hadlaa, waxaa loo baahan yahay in la midoobo, in midnimo laga shaqeeyo. midnimo see lagu hela, see lagu gaara maskaxdii hadday aysan fadhinin. marka hore waxaa loo baahan yahay in maskaxda la kobciyo, aragtida la bedelo, inaan is-aaminno oo aan isdhahno walaalkaygii soomaali waayo qofkan, oon u fiirinin qabiil iyo qabyaalad. mudane Bashiir, arrimahaasoo dhan waxaan kaa sugaynaa inaad wax ka qabatid oo ilaahay kula garab galo. anigana oo ku hadlayo magaca qowmiyadda Banaadirga waanu kuu codeynay, codkeedii waa ku siinay. ilaahay ha kula garab galo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa hagaag waxaad dhegaysateen, daawateen murtidiisa, aqoontiisa, garashadiisa iyo weliba darjacaylkiisa intaba aqoon-yahan sare maxamed cali shiikhey oo ka mida qowmiyadda soomaalida ee dalkani Canada, gaar ahaana reer Toronto ah, isla markaana guddoomiyaha jaaliyadda Banaadiriga ee dalkani Canada. waa hagaag waxaan aadaynaa xagga haweenka Soomaaliyeed oo saxaafad ahaan aan ugu yeedhno inay yihiin hormoodka nolosha. aad ogtihiin qaybtii lixaad ee xagga taakulaynta iyo weliba tarbiyaynta ubadkaba ay ka qaateen tan iyo burburkii dalkeenna ku habsaday aynu u soo haajirnay dibadda. haweenka Soomaaliyeed ayaa qaybtaa iska lahaa oo aad ugu mahadsan. waxaad ila soo dhaweysaan gabadhii heeh oo dhalay duuliye sare Somali Airlines, waa Suuban Faytaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ملكا كل مروين مدنيال وادي سلامة. أنا مقعس أبي أمتلويا أديرك عبد النور حقه فديا. أدايت هيسك وحان مقلاي لدهاي صومال قبيلة كلا جي. إيش صومال قبيلة مكلا جي. صومال قبيلة كانوا يسكو هايبا. هدول كلا جي لا وكلا تجلهن. مين يسقول سنا وأسو قارانا وأسو إيماننا. هدي قبيلة جرمانتا. hal reera imaanay soo maaha, waa wada joognaa. marka qabiilku waa wada joognaaye hadaga fogeynina. sidii loo isticmaali lahaa hagaajino, micnaha xoogaa aan joojino xashada badan iyo waxyaabaha oo ilaahay ogoleen. ilaahay wuxuu ogolyahay sinaan, cadaalad. walaalkaa aad jeceshahay iyo naftaada waa inaad ka jeclaataa walaalkaada kale kuu baahan. marka systemkaa naga hadlaysan maahine wax naga hadlaysan ma laha. ilaahay nasiibuu na siiyey hal qoomiyad oo isku mid ah oo isku jiin ah oo la kala kasaynin. haddana ilaahay wuxuu na siiyey dhul ballaaran oo noo gaar ah. axmaaraa nagu dhegan 20 qoomiyad waaye, waana wada joogaan. marka anaga systemkaa naga hadlaysan madaxweynaha musharaxa Bashiir Ammaan Cali Mire waxaan ku dardaarminayaa inuu cadaalad ku dadaalo.
ماشي عدالة كجرتو وأكتي رسولك عليه الصلاة والسلام مركو أصحابته كلا قيبيين نين قال له ونقاش الله أدرك وحكى له مدرين عدالة ودوها عدالة ده وحكي أنت سناني عدالة يو وناك أنا مركا هوين كان أنا بتلي يا ولد هاي ولالكي محمد هوين كان أنا بتلي كري لكن وديانة waxaan jeclahay Soomaali inay midowdo Soomaali inay horumarto Soomaali inay dadaasho reer Toronto aad ay mahadsan yihiin waxaan ku dadaalnaa dadka dhan inaan isu keenno anu waxay casuulnay gabar yar oo eedaan u ahay habreer u ahay shukri gujiro la dhahayo shukri habreer waa maasan tahay qiimaha ay yeeshay isay casuuntay igu dartay ina xataa hadlo marka waxaan ku celcelinayaa walaalkeen haddii la doorto oo soo baxo iyo haddaan la dooraninba inuu Soomaali u shaqeeyo horta ma aha in lagu doorto bas inaad u shaqaysid doorashadu waa nasiib jagada waa hal jago qofka Ilaahay u qoraayo laakiin haddii markaan dooro wayno ama ku soo bixi waayo hadduu naga haro wax fiican maaha Soomaali waxay u baahan tahay markasta in loo shaqeeyo aniga mar badan dadka markaa la hadlo waxaan dhahaa haddaan shaqaale fiican noqono oo very strict Soomaali horumaray example yar soo qaada Soomaali way ogtiin Eritrea la joogtay Eritrea meesha kima tamaanta idin sheega ani beeraley ah reer Johor ahay Johor waxa ku tiil isnaay biyaasa Soomaali ku dhaxtaala Talyaanigu wuxuu isku haystay Soomaali Eritrea shaqaalaheena markay fiicnaa waayeen Talyaaniga Eritrea keenay si ay shaqad u socoto Eritrea u jeedino Soomaali joogto isnaay biyaasa Johor joogtay Allah meesha waxa ka muuqato Soomaalida dad struggle oo shaqaysanay oo fiican manihin hadda dib betrol la soo saaro yaa nooga shaqay doono Eritrea ma la doona Talyaani ma haysto marka Soomaaliye number 1 waa shaqo nin shaqaystay oo dhididkiisu cunaay oo lacag haysto cid ma u baahno hadda Toronto ma joognaa anigu ay believe Toronto hadda midowno oo hal noqono Trump waa ogaana cidana ogaanayso Soomaali waa soo socotaaye amaan hala siyaaso bixiso laakiin marka kala daadsanahay oo anagi isu tureynin oo anaga ku kala baxsanahay meeshii oo dhibkeen hoos haysan qabiil maaha walaala isdagaalsan Toronto wiili waalida isdagaalsan qabiil ma ka dhaxeeyo meeqa qof ogtiin oo maanta u baahay leeshiisiyo Toronto dhexdeeda ani community ku dhex jiraa hooyooyin waxa aqaana gabdhooda la hadlin aabayaal waxa aqaana wiilashooda salaamin waxa jiro dad ilma adeer oo is salaamin aroos isu imaanay Allah kuwaas qabiil ma kala geeyay kuwaas edeb darro iyo xaasidnimo iyo maamul xumo oo dhexdeena ku jirta kala geey marka walaalayaal hadalku waa soo koobay maadaama xafladda yar tahay waxaan aan taaban gunta musliin aan nahay haddana salaadan ku sii jeednaa ana hadda Muqdisho waan ka imaaday laba bilood ku maqnaa is the first time 16 sano tagay oo labadaas bilood aan cabsanin ana dadka aad u cabsada ahay ma jecel inay wax ugu dhacaano habeenkii 30 bisha oo bilmi luulyo meesha xafladan joogay madaxweynaha markuu soo galay waa baxay waxa aaday hotelkii askaad sababtoo ay wax kala meen ana askari ay dhalay madaxweynaha dadka la raadinayeen wixii ku dhacay maxay ugu jiraan waa iska baxay marka safety-ga ka jira hadda xamar waa very relative safety waaye anytime waxa laabi karaa laakiin dadku waxaan ku dhahay inaan enjoy garayno maanta waa fiican tahay maanta noolaano marka nabadda ciyaalka hadda waa fahmeen ciyaalka dhalinyarada 40 jirka oo 10 sano jir markuu dagaalka dhacay wiligood ma u maleeyay inay nabadda fiican tahay hadda waxay ku leeyihiin eedo saama ku noolaa jirteen ka fiican eedo maxay idin daaray marka waxay ku leeyahay okay ninkii banaan baxay ilmihiis ma joogo ma baxayno banaan bixi dhawaay ilmaha diid maahine waa lagu talagalay habeenkii san xamaran joogi wiilay qax ma joogin waa cabsaday markii dambe waxa ogaad in la baxoonibo hormuud wayna badbaadisay waxay nagu badbaadisay 2 hour EVC hawada ku maqnaa lacag la'aantii waxay keentay in lagu badbaadibo marka gabagabadii taas story way madaxweynaha congratulation ilaahay haka sina madaxweyne noqotid kulligeena ku imaarina markaas وهجاج waxay ahayd suuban faytaan oo ka mid ah haweenka reer Canada gaar ahaan kuwa magaalada Toronto ee dalkani Canada waxa laga hadlay cadaalad sinaan iyo midnimo oo aad loo codsaday xuraansi saxaafadeed oo ku soo sameeyay xisbigan
وقدوميها كي هاي مرشح مدحوين بشير أمان علي مري هيمرين كودا دولة نمو وحن كو أركا إني تهي سنات عدالات من نمو ديمقراطيات إيا الدولة الروضة هي الصوماليات استقى أيا إنوش الرحي دونا سؤالنا واتكوي دين دونتان وهجاج وحنو ريا من كم إذا ضدك الصوماليات هي تورنتو إعان كأه ولد آد وغدر من مدى إيرونجك الصوماليات إلى سوريا إنجنير سعيد دفوجي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dadka halkaan isugu yimid inay nala soo dhaweeyaan walaalkeen musharax madaxweyne Bashiir Amaan Cali Mir salaanta ka bacdi horta Bashiir anigu booliskiisa aad baan uga warqabaa siyaasadihiisa waa ka warqabaa wuxuu aaminsan yahay waa ka warqabaa runtiina Bashiir waa nin aqoon diineed iyo aqoon maadiya labadaba leh markii ummad islaam la hogaaminayo waxa loo baahan yahay qofka hogaaminaya inuu labada aqoon baleeyahay sababtu waxa weeye cadaalad baan ka hadlaynaa bini aadam cadaalad ma samayn karo ilaa inuu ilaahay ka baqo oo dariiqiisa raaca maana cadaalad ma samayn karo qofku waad ogtihiin waddamadan aan joogno cadaalad meel ay adduunka jirtaa ma jirto waana diin la-aanta waxaas marka qofku inuu diin leeyahay oo ilaahay uu ka baqo ilaahay aaminsan yahay buu cadaalad ku keeni karaa haddii qof aan diinta waxba ka aqoon oo xaqa iyo xaqdarrada aan kala aqoon ummad loo dhiibo hoggaankeeda xataa hadduusan xumaan uga jeedin in badan buu kharibaya marka horta aad baan ugu faraxsanahay Bashiir inuu yahay nin diintii yaqaano oo aqoon diineed oo fiican leh si fiicanna diinta u yaqaana waa mid waxaan u malaynayaa Soomaaliya waxa weerariyay waa clan based politics siyaasadda qabyaaladaysan waxa ma tarto ummadana waxa u tari mayso dalka wax u tari mayso ummadana waa kala dilaysaa Bashiir waxaan aaminsanahay in uu aaminsan yahay oo aan ku ogahay inuu aaminsan yahay siyaasad waddankan wax u tardha iyo ummaddan cadaaladna ku dhisan islaamnimana ku dhisan sidaadana waa la tartamaya waddanka waa la wada leeyahay aaraacda lagu kala duwan yahay aaraacda waxaa loogu kala duwan yahay war waddanka sidaan dariiqan buu ku fiican yahay iyo dariiqaana lagu wadi karaa iyo sidaana maslaxad ugu jirta dagaal maaha laakiin inaan kala ra'yi duwanaano maanta anaa saxnaan kara beri ninkaasaa saxnaan kara maanta aniga waa khaldanaan kara waxaa la rabaa dadkoo dhan dhulkay wax ku leeyihiin waa waddankoodii dadku waa dadkoodii laakiin aaraacda iyo dariiqa la marinayo dadkan iyo sida loo hogaaminayo waa lagu kala duwanaanaya ma aha marka inay cadaawad keento maaha waxaan leenahay dimuqraasiyaan rabnaa haddana dimuqraasiyadii waa diidana waayo dimuqraasiyaan sheegayno macnaheedu muxuu yahay macnaheedu waxaa weeye de qofku ra'yigiisa inuu la yimaado ummadda wixii uu ku hogaamin lahay inuu la yimaado siyaasadda uu rabo dadka inuu ku hogaamiyo inuu la yimaado khasab maaha in adiga ku raacsanaado aniga adigu waa kala fikri duwanaan karaa laakiin ummaddaa la rabaa inay go-aan gaadho oo ay cidday rabto doorato ay fiiriso cidday hoggaanka u dhiibatay in lana xisaabtanto marka Bashiir anugu waxaan aad iyo aad u aaminsanahay dee qofka in la doorto ummadda Soomaaliyeed bay ku xiran tahay laakiin waxaan aaminsanahay siyaasad fiican inuu aaminsan yahay ummadda Soomaaliyeedna wax ku ool u noqonaysa marka walaalkeen Bashiir Amaan waa soo dhaweynaynaa anigu kolley waa ku qanacsanahay siyaasadihiisa waana sheekaysanay waana iska warqabnaa runtii aad baan ugu qanacsanahay qofkii aan ku qanacsanaynaa xaq wuxuu leeyahay dadku way xaq u leeyihiin inay su-aashay qabaan weydiiyaan lamana rabo qofka bini aadamka axsaabta maxaan u samaysananaa ma diidi karno haddaan rabno inaan democracy hello waa in axsaabta ogolaana gobol ha joogeen tan federaalka ha joogto sababtu waxa waa wada tashigu saas buu yidhi qofka marka lama rabo in la iska jaajgareeyo oo ama la iska raaco indhala-aan ama indhala-aan lagu diido lama rabo waxaa la rabaa qofka in aad ogaato boolisiskiisa annagu dadka qalbigooda ma xukumno ilahay keliya xukumi kara laakiin waxaa la rabaa dadka inaan la xukuminin iyagoo oon maaragtay
aadan aqoon u lahayn oo aadan ka warqabin qofka lama xukumi karo waxa weeye marka anu bashiir waa soo dhaweynaynaa ninkan waxa nala soo dhaweeya bashiir waxaana la ii wakiishay inaan anigu ku wareejiyo mikrofoonka isaga walaalkeen bashiir boolis isaga ka hadli doona isaga inoo sheegi doona wuxuu qabo xisbigiisu wuxuu aaminsan yahay meesha wax marayaan ku soo dhawaada lena walaalkeen musharax bashiir ammaan cali mire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي بان دين سلام يا آد بان قم هاد علينا يا أهل الشرف كجوبتن شوقا ويدل أنا وجوهر مريا odayaasha jaaliyadda madaxda u ah ee sharafta leh qiimaha leh gabdhaheena sharafta leh oo qiimaha leh dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba leh aqoon-yahanka culummada dhammaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa allah idin sharfo allah idin karaameeyo tiimka hogaaminaya meediyada iyo shirka hogaaminayaba oday maxamed cabdulaahi xasan iyo ay ugu horeeyaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaantiin allah idin sharfo idin karaameeyo aad baan reer Toronto si gaar aan ugu mahad celinayaa tan iyo airportka tan iyo hadeer yaa la wada la soo dhaweeyay waliba anoo habeen bar imid marka waxay ku tusaysaa magaalo ilbaxnimo iyo xadaaro iyo sharaf iyo gobonimo ay taalo aad baan idinku mahad celinayaa waxaan rabaa insha Allah taala inaan la qaybsado aragtida iyo fikradda aan qabaan isleeyahay Soomaaliya waxba laga qaban karaa waa talo fikrad dhinacayga ka timid إن شاء الله تعالى سؤالها إسكال قيب قادن دونا وحلا لي وحيد فهمين وحد واركتان إن خلدين وحد واركتان إن لا صحة تلوين كي فكرة دي أي سوتش ديين وضيضوا يدلوا الرجسانية وضي محمد علي الشيخي ومحاية النين تاريخية هنا تاريخ ذا أدبا ونش على هاي كتاب وقرأي وتاريخ ذا البنادري وكش كيني أنا أدبا ونش على هاي مركا تلوين كي سوتش ديين وضيضوا دن سكر عمله يعني إن شاء الله وتحقلين دونا وده سعيد ويسودو إنجنير سعيد يوم حايت وده شاكيس كان شاكيس سنينا آد بانو فرحي رونهانتي وحان ربعينا كور مرو تيررك حسب الرماس أما أورك الرماس تيررك وكنت تاجي هاي إن شاء الله وأنا كبلاوي وأنا كختم إياه تيرك كوباد وحاول كدقن كدين الإسلامك كدقن كدين الإسلامك وقضب كوباد قضب كاس مهمة دولية هاي قضب كاس كدقن كدين الإسلام كمهمة دولية هي واحدة بملوا أركيا قضب كاس كدقن كدين الإسلام ك وانشرح يا سببته محيي للصومالي ما أنتوا حي مريسا حلقي كنيسة أي مريسي حلقي كنيسة أي مريسي واحد دينتي إن لقد جاي واحد برايفده أو كنيسة لقوا عابده إلهي دبنا كنيسة الباب كذا لقت جدينته سيدا سيرار يوروب أي جارين dadka Kirishtaanka oo diintooda ka tagay saas ay noqdeen Soomaaliya hadda waxay maraysaa heer diinta lagaga tago masaajidka la yimaada waa lagu tukadaa waa lagu cibaadaystaa albaabka masaajidka marka laga baxo diinta shaqo la isku malaha marka qofku waxa la wuxuu doono samayn karaa wuxuu doono xaraam buu iibin karaa dukaan buu leeyahay masaajidka ku dhagan xaraam buu ku iibinayaa qofku rabo dhici karaa qofku rabo khiyaani karaa qofku rabo been sheegi karaa qofku rabo dili karaa dhiigu xalaashanaya wax kasta waxay u noqotay xalaal marka diinta waxa laga dhigay private qofka salaadaada soonkaaga sakadaada wixii ahayd shakhsiga qofka shakhsiga waxa la wixii mucaamalo dhaqan oo diinta oo dhanba asalkeedu ku taagan yahayba waa laga saaray wixii waxa la yiri ma taqaana marka taa inaan saxnaan rabnaa diinteenu waxa weey waa cilmi iyo amal diinteenu waa mucaamalo diinteenu waa hab dhaqan waxa idin sheegay wax la yaab leh waxa laga yaabaa cibaadada soonka iyo salaada kaliya bay kugu xiran tahay adiga ilaahay bay idinka dhaxaysaa laakiin mucaamaladu waxay idinka dhaxaysaa adiga iyo basharka waxa laga yaabaa haddii mucaamaladii bini aadanka aad ka badbaado oo ilaahay qiyaamaha aad u tagto adigoo isaga kaliya dambi ka galay inuu ku cafiyo ku dhaafo jannada ku geeyo way dhici kartaa laakiin adigoo aadanihii dhibay ilaahay janno ka sugumaysid maxaa yeelay ilaahay ma cafiyo xuquuq dad kale ma cafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala adaa laga rabaa shaqada inaad qabato marka waxaad arkaysaa haweenay sinaysata xadiistii baa noo sheegay haweenay sinaysata yaa jannadii maxay ku gashay
ay waraabisay waa macaamalo xayawaan miskiin oo dhibaataysan bay aragtay way u gargaartay ilaahay waxeedii oo dhan oo dhaafay subxaanahu wa tacaala jannaduu geeyey waa garatay soo maha midna bisad bay naar ku gashay bisad xadiisku noo sheegaya bisad bay aqal ku xirtay markay bisadii aqalka ku xirtay laa hiya atcamatha walaa hiya saqatha walaa hiya tarakatha taakulu min khashaashi alard ama xashaashi alard wuxuu yidhi nabiga calays aqalkii bay ku xirtay cuntana ma siin biyana ma siin mana aysan sii daynin dhulkeeda ilaahay say uga qaraabato wax uga raadsato meeshii bay ku dhimatay iyadayna naartaa lagu geeyey waa macaamalo arag waa macaamalo marka soomaali waxaan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa meeshay ka khaldan tahay waa diinta islaamka ku dhaqankeeda bay ka khaldan tahay dowladdeena waxay ka khaldantay maalintii 60kii la qaatay dowladdii iyo calankii la surtay shareecada islaamka dhinac baa la iska dhigay sharciga talyaaniga iyo sharciga gaaladii dhulka laga saaray baa lagu dhaqay soomaaliya say u soo noqoto waa in shareecadii ilaahayna lagu dhaqo diinta islaamkana lagu dhaqo oo si sax loogu dhaqo waa qodobka koobaad xisbiga ramaas tiirka koobaad uu ku taagan yahay waa kaas tiirka labaad waa hirgelinta dowlad wanaagga waxa la yidhaha good governance maamul wanaag walaashii sharafta leh waxay ka sheekaysay waxa ilaaliya maamulka iyo shaqada iyo camalka shaqadu waa camal maamulka wanaagsan isagaa baabiinaya wax oo dhan fiiri good governance haddaa akhrido 8 tiir buu ka kooban yahay 8 qodob wey 8 qodob insha allah haddaan maalmaha selno waan idiin sharxi doona halkan uu igu jiraa 8 qodob weeye waxaa ka mid a qodobadaas waa qodobada baabi'inaya laaluushka baabi'inaya khiyaanada baabi'inaya xatooyada baabi'inaya qabyaalada baabi'inaya qabiilku ma xumo waa sax siday tiri weeye diinteennuna saasay leedahay laakiin waxa xun waxa weeye qabyaalada waxa weeye inaad qof ku colaadiso inuu reer hebel yahay ama qof ku siiso xuquuq uusan lahayn maadaama uu reer hebel yahay marka qabyaaladu waa noocaas qof baad xaqiisii ku siinaysaa sababta waa reer hebel qofna waxaad siinaysaa xaq uusan lahayn sababta waa reer hebel ama qofkan xurmu leeyahay waa reer hebel qofkan xurmo male waa reer hebel sax maaha sidaa marka taas way tan xun laakiin qabiil in la ahaado ilaahay baa ogol diinta ogol in maxay tahay reer la ahaado rixim in la xiriiriyo diinta ogol laakiin wax xun bay diintu diidan tahay maamul wanaaggu waa qodobka Soomaali badbaadin kara waddankeena dhisi kara na hormarin kara waa maamul wanaagga sharax dheer baan ka bixin doonaa qodobka saddexaad adeeg bulsho oo dhammaystiran oo tayo leh adeeg bulsho loo baahan yahay social service baa loo baahan yahay tacliim bilaash loo baahan yahay caafimaad baa loo baahan yahay wadda loo baahan yahay waxa loo baahan yahay biyo waxa loo baahan yahay koronto waxa loo baahan yahay nolol wax la cuno wax la cabo ma jira adeeg shacab maadaama adeeg shacab uusan jirin inaga baa cunayna marka waxa la isku dilayaa ceel biyo la isku dilayaa reer hebel Everest kaga dhigay ceel biyo ma ceelasha badsanno ma biyo soo saarano waxa la isku dilayaa daaq halkan abaar ka dhacday halkaas waa la isdilayaa in yar baa la isku haystaa madaxda Soomaalidu waxay isku wada eriyanayaan ma taqaana xoogaa shilmaano gaala laga soo tuugsado yaa la isku wada dilayaa marka meeya adeegii bulshada meeya adeeg baan u baahanahay inaan sameeyno oo dhammaystiran oo tayo leh aragtida xisbiga ramaas ama aragtida anigu aan aaminsanahay qof ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu qadaro oo dalka Soomaaliya aan hogaamiyo qodobadan muhiimka aragtida iyo visionka waxay dhahaan Soomaaliga waxaan u bixiyay bidhaanaad ilaashanayso beegsanayso oo aad mataqaana ku socoto meesha aad rabto inaad tagto waa bidhaan kuu muuqata aragtida ii muuqata waxa weeye Soomaaliya barwaaqo ii muuqata Soomaaliya barwaaqo maxaa yeelay waxaan nahay fiiri mucjisada ilaahay wadankii ugu qanisanaa dunida inaan noqono dadka ugu fakhrisan dunida ma saxba waxna qabta ma tahay ilaahay baan kugu dhaariyay waxna qabta ma tahay cilmiga adduunka fiiri baar ilaahay khayraadku nasiiyay nimcadu nasiiyay baar iyo maanta inaan fakhri nahay oo tuugsanayno oo hay'ado wax ka sugayno oo Red Cross wax ka sugayno oo Save the Children wax ka sugayno oo Oxfam ka sugayno oo organization wadan kasta oo aan tuugsanayno ma wax sax oo qalma meeda gobonnimadeena sharafteena hadraawi waxa la yiri waa maxay gobonnimo hadraawi Allah naxariisto abwaankii weynaa Soomaaliyeed gobonnimo waa maxay gobonnimo wuxuu yiri waxa weeye baahidaada inaad ka adkaato baahideena inaan ka adkaano intaan gaalo tuugsan lahayn gacanta u horsan lahayn Soomaaliya barwaaqo
maxay ahayto waxaan aad u bartay waxaan raadsaday inaan barto cilmi dhaqaalaha waddan sida loo soo saaro waxaan u dhiganayay keliya inaan ogaado waddankayga maalintaan tago saan dhaqaale u soo saaro sababtu maxay tahay sababta miisaaniyadda waddanka Soomaaliya $1 bilyan $1 bilyan wax ka yarooy $1 bilyan halka bilyan in yar baan ka soo saarnaa inta kale waa tugsanaynaa shaqaf iyo koon baan la wareegaynaa xogaan nasiir dawlad hebelay xogaan nasiir dawlad walbana ku gumaysanaysa dawlad bana iyada ku xukunta marka wuxuu yiri professorkii 5 waxyaalood waddankii leh waa guuleystay 5 waxyaalood cid walba taqaana wuxuu yiri xoolo ka bilaabay xoolo hadda leedihiin xoolo ma leenahay mise ma leeyin haye yaa naga xoolo badan haye waxa qodobka labaad inaan leenahay bad iyo kalluun haye badda ugu dheer Afrika khariidada inaga ugu dheer Madagascar kaliya naga dheer oo laakiin jasiirada laakiin Afrikada khariidada Soomaaliya koowa Soomaha bad iyo kalluun Ilaahay ma nasiib nama siin Sheekh Mustafa Ismaaciil Haruun Allah maxay tahay Ilaahay khayr ha siiyo ajri xasanad ha siiyo wuxuu yiri waagi abaartu nagu dhacday haddii qof kasto Soomaaliya xeebta uu tago saa yiraahdo kalluun buu soo qabsanaya maxaan gaajo ugu dhimanaynaa waa gar Soomaha saddex qodobka saddexaad oo waddankeena Ilaahay siiyo u hibeeyay waa maxay beero dhul beereed ma leenahay 9 milyan oo hektar baan lahayn 1 milyan oo hektar waa la gubay dhuxul baa laga dhigay 8 milyan oo hektar baan noo haray 8 milyan oo hektar intay la egtahay ma taqaanaa waxaan muxaadaro ka jeediyay Kuwait jaamacadda Kuwait waan u sheegay marka waxaan ku yiri dhul beereedka Soomaaliya wuxuu leeyahay Kuwait oo 5 goor ah waddanka Kuwait oo 5 goor bal ka warrama marka way qaracmeen markaas waxay baareen taariikhda way baareen waxay yiri wallahi waa sax dhul beereed Ilaahay ma nasiibisa nama siin haye dhul beereed waa leena afar inuu dhulkeena laga helayay biyo iyo maxay tahay koronto laga dhalin karo dhulkeena koronto ma laga dhalin karaa korontada cadceedda ma laga dhalin karaa solar energy ma laga dhalin karaa ya professor Sudishan kaxay professor Sudishan shirkadda Siemens ragga ugu waaweyn waxaan geeyay Soomaaliya deegaanka Soomaaliya qayb kamid ah markaan geeyay wuxuu yiri halka waxa laga dhalin karaa koronto ku filan qaaradda Afrika oo dhan dabaylaha sidoo kale korontada dabaysha ma laga dhalin karaa waddankeena nacam waa laga dhalin karaa biyo iyo koronto ma leenahay mise ma lihin deegaankeen dhulkeena Soomaaliya qaarkood webiyaha dhulka hoostiisa mara maxay ahayd dawladda Israa'iil maxay tahay waalano khariban waxay tiri Soomaaliland markay u tagtay waxay yiraahdeen Soomaaliland business waan ka sameeynaa yaa dhageystay businesska rabeen inay ka sameeyaan oo Epstein documentigiisa ku jira waad maqasheen Soomaaliya beeriyo biyo Soomaha dawladda Israa'iil waxay tiri Soomaaliland khayraadka ugu weyn aan iibinayno waa biyaha dhulka hoostiisa ku jira ay rabtaa adduunka inay ka iibiso inagina oon baa u dhibanay Soomaha oon baa la isu laynaya biyahani bay rabtaa dawladda Israa'iil inay iibiso waa garateen Soomaha khayraad Ilaahay waa nasiiyay tan shanaad oo ugu dambaysa anigu waxaan yiri tan naga maqan tan inaan raadinay inaga leena ka rabaa tan shanaad oo ugu dambaysa ma taqaana waxa la yiraahdo tan shanaad oo ugu dambaysa al-insaan saalih waxa tirahdaan idinku ma taqaana human resource aqoon ma leena mise ma lihin waa leena aqoontii dadka aqoonta la Soomaaliyeed ma jiraan way jiraan laakiin lama isticmaalo aqoonta lamana tixgeliyo lamana xurmeeyo madaxda Soomaalida waxa lagu tarbiyay ma taqaana waxa lagu tarbiyay madaxda Soomaalida qof aqoon la inay ka cararaan qof horumarkeena kale inay ka cararaan qofku kaliya heer kasta kala soo baxan oo maxay tahay wax aqoon aan lahayn waxa naga maqan marka tii shanaad ogowna waxa naga maqan hogaankii qofkii hadii la hogaankii afartii khayraadba maka aradana mise kama aradnayn sababta kii khayraadka soo saari lahaa baa ina ka maqan Soomaha oo ka shaqaysiin lahaa oo horumarin lahaa yaa ina ka maqan qaacidada lagu doortana hadda 4.5 markii la yiri gobol kasta ka soo bilow geeska Soomaaliya ilaa geeska Soomaaliya marka la rabo in la dad shaqo la siiyo wasiiro la qoro agaasimayaal la qoro waxa reer laga dooranayaa kan ugu qaaqalaysan ugu liita oo maxay tahay wax horumar lahayn doonaynin qorshihiisu iyo xogaa shilmaana intuu urursaday inuu tago waaba qaacidada lagu doortaba nasiib darray noqotay marka aniga waxa ii muuqata Soomaaliya barwaaqo waan ka khayraad badannahay waan ka nimco badannahay wadamada kale oo dhan qodobkaas sidaan u wada sameyn lahayn shaqada noo taalo way isagaan ku bilaabay maxaan ugu bilaabay maxaa yeelay waa qayb kamida dhibaatadeena oo dhan taas weeye waana insha Allah taala khatimkana waad arki doontaan Soomaaliya oo nabad ah
soomaaliya oo nabad ah waa riyo saxa oo soomaaliya oo nabad ah waa gartay soomaaliya oo nabad aan doonaynaa saddex waxaan doonaynaa soomaaliya oo cadaalada waa cadaaladda ka sheekeynaysa gabadhuna ka sheekeynaysay odayadoo dhanna ka sheekeeyeen akhyaartoo dhan ay ka sheekeeyeen cadaaladdu waa muhiim cadaalad la'aanta wax ummad ku rogantay weeye cadaaladdu waa muhiim qodobka kale soomaaliya oo qayb libax ka qaadatay ilbaxnimada dunida waa inaan qayb ka qaadanno soomaaliya ilbaxnimada dunida qayb ka mid ay ahayd waxaan ka qayb qaadan jirnay ilbaxnimada dunida muddo hore waxaan ka qayb qaadanay 750 sano sanad guuradii caasimadda Sweden ee Stockholm sanad guuradeedii marka kelmad baa laga siiyay 750 sano u dabaaldegaysa waxaan warka ku bilaabay oo ku faraxsanahay Stockholm 750 sano jirsatay laakiin anigu waxaan ka imid caasimad dhowr kun oo sano jirta dhul caasimadiisa dhowr kun oo sano jirto markaasay dadkii wada qiyaaseen waxay ku dhaheen hindi miyaata hindi markaan dhameeyo khudbadii isudhishku waxay ku dhaheen hindi miyaata markaas ay ma hindi ma halkaas ilaadeen Bangladesh mi Indonesia meelayga la dhaceen ma jirto aqligooda kuma soo dhicin Soomaaliya ma malayn kartaan waxay ilaadeen Yemen miyaata maya hadda waxaan ku yiri Soomaaliya naga daabay dhahay sheekada Soomaaliya ma dhici kartay ilxanama inay leedahay markaasaan iri akhriyo kutubta bay akhriyeen ixtiraam badan bay muujiyeen marka ibn Battuta markuu qorayo ilbaxnimada Muqdisho taala markuu qorayo Stockholm ma jirin ka warama Stockholm ma jirin markuu ibn Battuta Muqdisho ka qorayo buugga ka qorayo marka waxa la doonayaa qofka Soomaaliga inuu ku faano gobonimadiisa sharaftiisa ilbaxnimadiisa adduunkan la ganacsan jirnay adduunkan geyn jirnay cilmigeena aqligeena wadamadan oo muslim diinta anagu geynay wadanka Brunei waxa qoran nin Soomaaliya inuu diinta keenay sheekhna aha caalimaha Maldives ina anagu geynay Indonesia ina anagu geynay dunidana hagi jirnay hogaamin jirnay ma og yihiin Soomaalidu 1200 oo sano xarameynka inay Soomaali difaacayso gacanka cadmeed iyo badda cas in Soomaalidu ay jeesh sameeyeen xitaa qabaa'ilka Soomaalida iyo boqortooyooyinka Soomaalida ka jiray inay ilaalin jireen gaaladii rabtay intay badda marto jidda ay ka gasho Maka ay tagto burburiso ama Madiina ay tagto la soo baxda qabrigii nabiga ciidan Soomaaliya yaa difaaci jiray 1200 sano waxaas xadaaraan leenahay ilbaxnimada dunida inaan qayb ka qaadano waa laga marmaan Soomaalida oo siman waa riyooyinka rasmiga aan leenahay Soomaalida oo siman hadda Soomaalida ma sinayso moogid waxaa la yiri reer hebel male wasaarad male reer hebelna wasaarad bay leeyihiin reer hebel iyagu agaasimo ma dhaafaan waa gartay Soomaa reer hebel ma noqon karo madaxweyne ma noqon karo reer hebel waxa ma noqon karo ilaahay baan ku dhaariyay waxa ma naqabtaan inagoo muslimiina oo adduunkan joogna casrigan la joogo 2026 ba hadda waxaan maqlaysaa reer hebel waxaan leeyahay reer hebelna waxaan ma laha waxa ma naqabtaan marka Soomaali siman miya marka Soomaalidu siman waa inaan gaarno heerka waa inaan gaarno qof kasta oo solina waa inuu xaq u leeyahay jagadu doono u qalmayno qaban karo soo ma garan isagoo la fiirin isirkiisa iyo wixii annaga ba ka sheekeynayna halkan waxaan cunsuriyad baan ka sheeganaynaa wadankeena bay ka jirtaa waa in arrinta wax laga qabto Soomaalida oo siman Soomaalida u hoggaansan sharciga Soomaalidu sharciga ma jecla way neceb tahay way ka leexataa inay ka leexatay jecesha inay raacdo ma jecla marka riyooyinkeena waxa kamid ah Soomaalida oo u hoggaansan qodobkan ku khatimayo waa akhlaaqda waana tan ugu muhiimsan Soomaalida ugu akhlaaq badan dunida akhlaaqdu waa muhiim aad bay muhiim u tahay Soomaalida ugu akhlaaq badan dunida intaan waa riyadii waa himiladan lahayn waxa way aragtidii waa bidhaantan raacayno raadsanaynay idinka wadamadiina waqooyiga Mareykanka waxa ay leeyihiin hees dhan oo la yiraahdo I have a dream Soomaha hadda I have a dream marka waa tan alaabada kana marka ka dhigan insha Allah taala taas ka dhiganayna himilada mishinka qodobadan marka waa boobsiinaya laakiin dhow su'aalaha la iga weydiin karaa waxyaalaha aan aadka u aaminsanahay waxa kamid ah in shaqo abuur la sameeyo lana soo saar khayraadka dalka qof aan shaqayn gob ma aha qof aan kalihin horumar ma laha qof aan mataqaanaa shaqaysan wax macno leeyahay male dhalinyaradeena shaqo la'aan ba haysa aqaladii bay iska joogaan horumar ma jiro wax shaqo abuur samayn kara ma jiro wax la abuur leh ma jiro halkaas ku rafaadeen ku dhibtoodeen markay iskuulka ka soo baxaan magaalo Soomaaliyeed waxa ka soo baxa 1400 oo arday baa dugsi sare dhamaysay dirtooradii baan weydiiyay waxaan ku yiri imisa shaqo hesha waxay yiraahdeen 50 ilaa 70
كوني أفر بقول كنتم كجو كون صدح بقول كنتم هكوسو هرتي سومها وحين كنتم كان شقده يلا متضواتن كحجبي كيلان reeraho da dukaan leh ama makhaayad leh ama bibi tale ama dabakaaya leh meeshaas ka shaqeeyaan meel kale aadaan ma jirto lama arko waxaan yiri kuwa kale xagee aadaan mid tahriibo baddu liqdo mid meelahaas aada Nairobi mid ka dhaca Uganda mid aada South Africa mid aada mid Yemen aado baddu liqdo ilaahay baan ku dhaariyay ka warramo marka madax baan leenahay hogaamiyaal baan leenahay dawlad baan leenahay wasiiraan leenahay maxay qabtaan مشكلة أنا هاي ستا وضن كأنه وحنو بهنا شقينا قبلنا شقابور باللبان هذا أنا قول شقابور بحاه كانكو قبلتي ما حد كرسي جوي شوكته ما حد مدحوينه وتاي مدحوينه قبلات بان هاي مدحوينها الدولة فلان لان شقنا ما شرته ده اللي يرد مركز يقول كسبحان كتج الدلك واحد ما تقارن لو دول قادن كرماه إن الديرة ده صارنا محي عدالة دي سنان تدرك الصومالية ده مهم أدب مهم وتاي arrintan waa muhiim in ay la fiirsan qodobkan aad buu muhiim u yahay qodobkan waxa weeye in hoggaanka dalka ku soo celino gacanta dadka Soomaaliyeed hoggaankii dalka Soomaaliya gacantii dadka Soomaaliyeed kuma jiro ciidamo kale aan xukuma oo noo taliya oo awaamirta bixiya oo nawaahida bixiya oo ma taqaanaa na kulminaya oo suuqan yeeraya oo na heshiisiinaya oo na kala diraya oo isku keen diraya waa garta hubka suuqan dhiibaya dad kale aan xukuumaba inaga isma xukunaba hadhow qolo meelka anagoo reer hebel xaq jooganaya anagoo reer hebel ba xaq xukunay baa la leeyahay hal qolo Soomaali xukunta ma jiro hal gobol oo Soomaali u talisa ma jiro kulli ummad kale noo talisa marka shaqada koowaad aniga aan laga rabo waxa weeye hoggaankii dalka Soomaaliya inaan ku soo celiyo gacanta dadka Soomaaliyeed Soomaaliya waa inay Soomaalida xukunto qodobka kale ahamiyadda ugu ballaaran inaan siiyo adeega bulshadana waa ku soo noqon doonaa mar kale insha Allah taala hadalkan waa muhiim inaan u saldhigo nidaamka dawladnimadu waa inay gaadho miyi iyo magaalaba dawladnimadu waa inay gaadho degmooyinka tuulooyinka xaafadaha inay gaadho meel walba hadda inaga dawladnimada hal magaalo ay joogtaa hal magaalo suuragal maaha aqlina maaha waa inay dawladnimadu gaadho meel walba inay gaadho adeega waa in laga helo meel walba ina hirgeliyo siyaasad dibadeed oo ku dhisan danaha iyo dareenka dadka Soomaaliyeed siyaasadeena arrimaha dibadda waa inay ku dhisan tahay had siyaasadeena arrimaha dibadda maxay ku dhisan tahay dawlado kala danahooda iyo dareenkooda dawlad baan amraysa siyaasadeeda fuliya dawlad kale haddana amartay siyaasadeeda fulita noogu daran ma taqaanaa laba iska soo horjeeda markii laba amarna kala siiyaan ee waalanaysa marka dawlad hebel aan amraysa tii kale aan amartay laba iska soo horjeed mushkilo dhibaatana haysata marka waxaan u baahanahay inaan arrinta wax ka qabano qodobka waa qodob muhiim ah miisaaniyadda dawladda Soomaaliya waa inaan ka soo saarno dalka gudihiisa miisaaniyadda waa inaan anagu la soo baxano risqeena waa inaan anagu la soo baxano waxa weeye miisaaniyadda waa inaan anagu samaysano dad kale aan ka sugin inaan midayno shacabka Soomaaliyeed in la mideeyo madaxdeenu maanta waxay ka shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed in la kala dilo la kala diro la iska horkeeno qabiil loo qaybiyo gobol loo qaybiyo nin kasta wuxuu arkaa shacabka Soomaaliyeed oo iska horkeeno inuu kursiga ku sii joogi karo marka muxuu kursiga ku soo joogay reer hebel buu ku xixinayaa reerkii wallahi reer hebel baa soo socda waana la qabsan rabaa waana la ku soo duuli rabaa xaqana la ka soo galaya reer hebel wax nooma ogola aan ka hortagno nin walba wuxuu rabaa meesha joogo inuu isagu joogo oo madax ka ahaado oo kuwii kale uu ka fogeeyo qodobkan waa muhiim anigu waxaan doonayaa inaan la heshiiyo kooxaha hubaysan kuna qanciyo gogasha nabadda kooxaha hubaysan oo dagaalama argagixisada loo bixiyay anigu waxaan rabaa heshiis inaan la galo inaan la diriro dagaal ku qaado ma rabo heshiis inaan la galo sababta idin sheegaya sababta waxa weeye weligeed Allaah kala alkaan mayno ciidan baa labadeeba noo taliya labadeena hubeeya hadda qolo markay reyn rabto qolada kale la soo xoojiya markaas maanta oo dhan la kala baxayn maanta oo dhan hal magaalo inay degto la rabo ma jirto oo loo ogol yahay inay xoroodo lama rabo mar allaale markay xoroodo haddana waa nala ka qabsan waxaad maqlaysaa magaalo hebel laga saaray xoogaa kadib haddana waa soo ceshadeen marka waa mushkil inteeda leeg waxaan u baahanahay arrintaas in wax laga qabto anigu waxaan doonayaa inaan hirgeliyo siyaasad qarannimo oo aan ku dhisnayn qabyaalada aan ku dhisnayn kooxaysi aan ku dhisnayn dana gaar aan ku dhisnayn faragelin shisheeye aan ku dhisnayn waana intana dhibaataysay inaan ahamiyadda ugu badan siiyo nabadgelyada muwaadinka Soomaaliyeed
muwaadinka Soomaaliyeed nabadgelyadiisa inaan ka shaqeyno hadda dhibaatada jirta ma taqaana meeshii la doonaa lagu dilayaa waqtiga la doonaa lagu dilayaa waqtiga la doonaa lagu dilayaa qofkii doonaana ku dilay meel aad ammaan ku helaysa cawaa lama ay jirto meeshii la doonaa lagu dilayaa imisa maalin kasta la dilay hebel baa la dilay hebel baa la dilay hebel baa la dilay mushkilad muwaadinkii ma haysta amni iyo nabadgelyo kaamil ma haysto ujeedooyinka fog inaan ka hirgeliyo dawlad wanaag waddanka oo idil dawlad wanaag waa muhiim inaan dhiso ciidan qaran oo tayo taagba leh ciidan qaran Soomaaliyeed in la dhiso ciidanka qaranka Soomaaliyeed markuu jiray inagoo yar oo tabar yar oo tiradeenu yar tahay yaa wax iska dhicinaynaa dawlado waaweyn oo quwado leh oo kumanaan sano jira dawlado kumanaan sano jira yaa wax iska dhicinaa anagoo yar oo tabar lahayn sababtoo waa maxay ciidan tayo laanu haysanay ciidan qaran baanu haysanay oo sharaf leh askarigu sharaf buu lahaa qiimo lahaa maanta askariga sharafta laga qaaday shilimaan yar baa la siinayaa waa uu tuugsanayaa ma difaacan waxaan yiri askari aan difaacnaysay buu wuxuu difaaca ma difaacana wuxuu gashan yahay surwaal iyo shaar wax rasaasta ka celiya ma gashana koofiyad wax ka celisa ma gashana waxba ma gashana markaasuu dagaalamaya inuu dagaalamo raba xabadda koobaad yaa ku dhacay soo dilaysa waxa kaaga dar hadduu dhinto waa dabeer bakhtiye ilmihiisii xaaskiisii noloshiisii mushaar male mushaarada ka go'a waa maqasheen askar wadadii goysay oo mushaarkoodii la soo maaha oo baabuurtii safarka qabsanayo mushaar ka qaadanaya waa garateen soo maaha musiibo nooga weyn miyaa jirta askarigaas u dagaalamaya see u xoreynaya hooyooyinku waxay yiraahdeen hadduu dhintana anuu iga dhintay waa hooyooyinkii oo qaylinaya hadduu dhintana anuu iga dhintay hadduu dhaawacana anaa la igu soo tuuraya iyadaa laga rabaa dawadiisii iyadaa laga rabaa aasidiisii iyadaa laga rabaa wax walba mushkilad weeye askarigii waa inuu tabar iyo taag u leeyahay tayana waa inuu leeyahay mushaarna waa inuu qaato nololna waa inuu haysto markaas wax difaaci karaa ciidamada shay inaan ka saarno dalka ciidamada shay dalka inaan ka saarno waxaan idin sheegayaa arrin muhiim ah la rabo maskaxdiina inaad gelisaan arrintaa waxaan rabaa qof walba inuu maskaxdiisa geliyo ciidan shisheeye meel u jooga nabadgelyo kama jiro waddankeena magaalooyinka waddankeenu ay nabadgelyada ka jiro waa magaalooyinka ciidan shisheeye joogin soo ma fahmin ciidamada shisheeye meel ay joogaan nabadgelyo ma jirto maxayba u joogaanba ciidamadaas inaysan nabadgelyo dhicin haddii kale waa ka kaaftoomaynaa soo maha mushaar fiicanna waa qaataan soo maha marka waa in waddankoo dhan laga saa inaan waddamada deriska xiriir wacan la yeelano waddamada deriska xiriir wacan waan la doonaynaa laakiin iyagiiba waxaa laga shaqaynayaa waddamadii deriska waxaa lagu qanciyey Soomaaliya quwad leh yeysan dhicin Soomaaliya yeysan nabad noqonin Soomaaliya yeysan horumarin markaas maxaa weeye khasab baan ku horumarayna markaas khasab baan dalkeena ku dhisanaynaa khasab baan ku samaysanaynaa laakiin anagu nabad baan la doonaynaa anagu nabad baan la doonaynaa adeega bulshada in la gaarsiiyo miyi iyo magaalaba miyigu waa inuu adeeg helo miyigu waa inuu adeeg helo sababtan miyigu adeeg u heliyaa idiin sheegaya hadduusan miyigu adeeg helin inaguna magaalada nabad kuma helayno way isdilayaan hadhowna inagaa isdilayna reer miyigaa isdilaya ceel bay isku dilayaan reer hebel adigoo magaalo joogaa qac lagaaga siinaya waxaa leeyahay reer hebel baa aana ninkii u dilay hebel ahaa marka waa inaan ilaalino mabaadiidaan ku khatimaya insha allahu tacaala markaa su-aalaha mabaadiidu waxaa weeye waa meesha udubka qofku ka dhaqaaqayo mabdu waa wax muhiim ah waxyaalaha muhiimka ah oo aan tixgelinayno kow waa tii baan ugu soo celiyey hirgelinta ku dhaqanka diinta islaamka waa qodob muhiim ah kaa ogaada maskaxda ku haya inaan dhaqan geliyo hanaanka doorashooyinka xorta oo daahfuran doorasho xor ah oo daahfuran sida tan kanadoo ka dhacda yaan u baahnaa dalkeena inaan ka hirgelina iyo waddamada horumaray ka dhacda waxaan hadda doorasho ku sheego Soomaaliya ka socda doorasho ma riwaayad baa ka socda dalka waxaa lagu leeyahay hebel baa madaxweyne noqonaya halkaas hebel baa xagga wax ka noqon waaba la sii sheegayba isagii baana noqonaya waxaas marka sax ma doorasho maaha doorashada waxa weeye mid lagu tartamayo si xalaala loo tartamayo oo la isla og yahay taasaa la dhahaa in mas'uul kasta lagu doorto qodobkan waxaan rabnaa inaad ogaataan meelna dhigataan mas'uul kasta oo dalka Soomaaliya ka shaqeynaya anigu waxaan rabaa in lagu doorto aqoon iyo ammaano in lagu doorto qofku inuu aqoonna leeyahay ammaanana leeyahay labadaas diinteenu tiri nabi yuusuf calayhi salaam markuu yiri halii dhibo xukunka wuxuu yiri inni xafiidun caliim cilmina waan leeyahay ammaanana waan leeyahay nabi muuse calayhi salaam inna khayra man istaajarta
القوي الأمين القوي وعلمي الأمين وأماندي لبدا سانو باهنا كليه دينتانو لبدا سيسميس قدب سدحاد ما جيرو سيدا ما يهي سيدا ما يهي ما جيرتو مبادئda waxa kamida in qabaa'ilada Soomaaliyeed iyo deegaanada Soomaaliyeed ay u sinaadaan maxay u sinaanayaan fursadaha iyo dhibka iyo dheefta xaq iyo xurmada intaba xaq iyo xurmada waa in loo sinaado dhibka iyo dheefta waa in loo sinaado fursadaha jira waa in loo sinaado adeegga waa in loo sinaado inaan qolo la ilaawin deegaanana laga takhalusin laga bixin sax maaha waa in deegaan kasta 18 gobol oo Soomaaliya waa inuu adeegu gaaro kadibna saddexda gobol oo kale oo maqan waa inuu gaaro dhulkeena Soomaaliyeed oo dhan waa inuu gaaro meel kasta waa inuu gaaro adeeg aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha waa inaan ilaalino bini aadanka xaqiisa waa inaan ilaalino xuquuqda haweenka waa inaan ilaalino dadka la dulmiyo xuquuqdooda waa inaan ilaalino aad bay muhiim u tahay waa laga marmaan annaga waxay qodobkaas cunay qodob mabda waxa weeye arrin biyo kama dhibcaana weeye inaan ilaalino xuquuqda inaan ilaalino insha Allah taala inaan ilaalino xuquuqda xooluhu xuquuq bay leeyihiin la ilaaliyo kitaabkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku sheegay axaadiista nabiga ku taala xuquuqda xoolaha ay leeyihiin xuquuqda duurjoogta waxay leeyihiin xuquuq bay leeyihiin xaqooda in la ilaaliyo diinteena ku taala waa in la ilaaliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wal arda wadacaha lil anam Ilaahay dhulka wuxuu ku tala galay waxa noolaha oo dhan inay ku noolaadaan dhirta dadka dugaaga maxay xoolaha cayayaanka wax kasto nool baa loogu talay inay ku noolaado inaan si dhab ah waxaan ku iri si dhab u hirgeliyo nidaamka xisaab xilma leh in la isla xisaabtamo oo si dhab loo xisaabtamo yaa doonayna hadda meel kasta gobol kasta wuxuu leeyahay xisaab xilma leh dawladdu waxay leedahay xisaab xilma leh hanti dhowrka qaranka hanti dhowrka gobolka hanti dhowrka maamul goboleedka waxa soo idil laakiin waxa sax ma aha wax runa ma aha waa wax iska ruwaayada laakiin xaqiiqda dhabta waxa weeye inaan sameeyno xisaab xilma leh dhaba inaan sameeyno shantan adeeg waa shanta adeeg Ilaahay Quraanka Kariimka ku sheegay nabi aadan iyo xaawo waa shantu Ilaahay jannada ku siiyay shantii baan doonaynaa waddankeena Soomaaliya inaan ka hirgelino shantan bal fiiriya marka kitaabkeena iyo diinteena aan ka fiirinaynaa wadamada horumar oo dhan oo cayrta bixiyana shantan qodob bay bixiyaan waddanka Canada hadda timaado shantan xaq baa lagu siinaya shantan quraankeena ku taala quraankeena Kariimka shantooda waxa weeye qof walba inuu helo masruuf iyo marasho inuu helo qof walba inuu helo wuxuu cunay wuxuu cabay in la siiyo oo loo diyaariyo qof walba inuu helo mariyo cawradiisa ku asturto qof walba inuu helo aqal uu ku xasilo guri uu dago caafimaad tayo leh oo bilaash caafimaad waa inuu tayo leeyahay bilaashna yahay tacliintuna waa inay tayo leedahay bilaash ay tahay waa shantii xaq oo Ilaahay nabi aadan iyo xaawo jannada uu ku siiyay shantaasan doonaynaa annaguna muwaadin kasto Soomaaliyeed meel kastuu joogo inuu xuquuqda ay gaadho yaan doonaynaa adeegga bulshada sheegayna waa shantaas waa minimum waa wixii ugu yaraantii weeye inta waa inuu helo saddexdii qodob baan ku soo khatimayaa tiirarkii Ramaas aan sheegay waan ku khatimayaa saddexdan qodob waxaan rabaa qof kasta maskaxdiisa inuu geliyo qofkii ku qanca saddexdaas waxaan doonayaa inuu nala shaqeeyo qofkaan ku qancin wixii kale ku qancay waa inuu sheegto laakiin qofkii ku qanca waxaan doonayaa inuu nala shaqeeyo nagala shaqeeyo waxaan rabaa marka in qodobkan ogaataan dhaqan Soomaaliyeed la barto waxay ku leeyihiin waa wax fiican adigu oros shaqeeyo tag marka ma doonayna arrinta inay dhacdo ma doonayno waxaan doonaynaa in haddii qofku wax wanaagsan uu ku qanco uu ka qayb qaato sidaa doonto uga qayb qaado ama anaga nala shaqee ama keligaa shaqee ama koox kale la shaqee ciddaa doonta la shaqee haddaa doon keligaa isla shaqee laakiin inaad wanaaggaa hirgeliso qodobka koobaad waan ku soo celinayaa ku dhaqanka diinta islaamka hal la ogaado ku dhaqanka diinta islaamku ma aha salaad iyo soon keligaa private ko inaad tukato ma aha salaada iyo soonka adiga private ku tahay adiga khaas ku tahay waxay bulshada u kordhinaysaa lama arko laakiin bulshada waxa u kordhinaya mucaamaladaada camalkaaga shaqadaada markaad bulshada sun ka iibiso oo aad disho oo aad dhibaatayso bulshadu waad halaagtay kun salaadood tuko haddaad doonto waa garatay Soomaha haddaad khiyaanto oo aad dhacdo oo aad boobto wuxuu u tagayaa qofkan shaqada Nairobi inuu guriga ka dhistaba Nairobi inuu guriga ka dhisto hadhowna cumrada tago oo cumraysto inta wax dhacdo dhan cumraday tagaan bisha Ramadaan waxaan idin dhihi lahaa bisha Ramadaan عرها هذا كان يقدر جيسته بيش رمضان
bisha ramadaan inta soomaali waxa dhacday bisha ramadaan bay waxay aadaan cimriday aadaan xajkay aadaan bisha ramadaan xaqiiq dhaba haddaad tagtaan soo fiirfiiriya dadkaas arka waxay u haystaan inuu cimrada hadduu tago ay wixii oo dhan laga soo fasaxay buu haystaa saas u haystaa marka ku dhaqanka diinta islaamka waa muhiim in lagu dhaqmo diinta islaamka qodobka kale hirgelinta dowlad wanaagga maamulka in la wanaajiyo qodobka saddexaad adeeg bulsho oo dhammaystiran oo tayo leh waxaan rabnaa marka in la yidhaahdo sida tan dad badan baan usoo bandhignay in la yidhaahdo sidii nebi muuse ay ku yidhaahdeen yuhuudda inaan la yidhaahdo ma rabno yuhuudda waxay yidhahdeen idhab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun muuse adiga ilaaha dagaalka gala annagu halkaan idinku sugayna idinku soo dagaalama ma ay dhihin asxaabtii nebi maxamed waxay ku dhaheen calayhi salaatu salaam waxaan ku leenahay idhab anta rabbika faqaatilaa innaa macakumaa muqaatiluun adiga ilaaha taga oo dagaalama annaguna waa idin raacaynaa waa idinla dagaalgelaynaa bay dhaheen marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaad nala dagaal gashaan dalkeenna aan dhisanno saddexdaa tiir aan hirgelinno jazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay musharax madaxweyne khudbaddii musharaxana uu noo dhammaaday haddana runtii waxaan gelaynaa su-aasha aan runtii soo yareynayno sababtoo ah su-aasha aan soo yareynayno oo ugu talagalnay qofkii su-aal qabo adigu koleyba afar qof ka badan ma samayn karno waqtigii waa runtii wuu dhammaaday laakiin waxaan rabaa wiil dhalinyaro ah inaan ku bilaabo sababtoo ilaa hadda qof dhalinyaro meesha muusan ka hadlin marka dhalinyaraduna runtii waa dadkan ku tashanayno adiga su-aasha kugu hormariyaa okay shiikha ugu hormarinaya soo dhawow deeqa waxay u malaynaysaa inaan waayeel ahay waxaan dhaha anigaba dhallinyaraan ahay aniga iga bilow su-aasha mudane bashiir waxaad ku celcelisay adeega bulshada hadda ka hor anigoo imaaraadka jooga waxaan fiirsaday waraysi laga qaaday ra-iisul wasaarihii maleeshiya mahatiir maxamed oo dowladda lubnaan ah soo kaxaysatay oo weydiinaysay sidee waddankaaga ku hormarisay ayaa la weydiinayay wuxuu yidhi miyiga wax kastoo ay u baahan yihiin meeshoodaan ugu dhisay oo iskool ha ahaado isbitaal jaamacad wax walba ha ahaado haddii aanan saas samayn lahayn magaaladay imaan lahaayeen oo serviskaas usoo doonan lahayn magaaladiiyaa ciriiri noqon lahayd marka annaga ma laga yaaba ma laga yaabaa inaan dad naga aqoon badan oo naga waayo aragsan inaan u tagno oo aan dhahno nala taliya sidaan mataqaanaa aan service fiican aan u qaban lahayn ma laga yaabaa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna ilaahay qur-aankiisa ku yiri wasalaamu calaykum aad iyo aad baan ugu waafaqsanahay xaajiga run ahaantii aniga qorshahayga waxaa ka mid ah wataan ilaa aqoon iyo ammaanaan samaynayna allaalay ciddii naga aqoon badan oo naga mataqaana waayo aragsan oo naga khibrad badan yaanu u tegaynaa waxaan ku faraxsanahay xaajiguu sheegay waddamada aan tegey 8 waddan oo aan target ka dhigtay waxaa ka mid ah Indonesia Malaysia waa tegey waan u bandhigay waxaan ku yidhi shaqadaasaan doonaynaa dalkayaga inaan dhisano waxaan idinka baahannahay hiilo iyo maxay tahay wada shaqayn iyo khibraddiina inaan ka faa'iidaysano wayna ballan qaadeen laba qof aan kusoo koobaynaa waxaan u wacaya wiil dhalinyaro ah soo dhawo maxamuud سعيد عثمان سورو محمود بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمود سعيد عمر وسلامنا مدحوينها دولة الصومالية وشرحا بشير أمان علي ميري كسو دمو علينا ودا كان كندا تورونتو جالية الصومالية رنتي أدبان وفرح سنة إنا نوتي مادب وبلشدي الصومالية وعيد والبله وصومالي شنت الصومالية كوضا دنتاي إنا عاو لفريسة تيد ووضا هذا الشان aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga iyo maanshaha midda kale kuna soo dhawow Toronto anigoo ku hadlaya jaaliyadda afkeeda media isku xiraha Puntland waan kaaga mahadcelinaa imaanshahaaga su'aalaha ku weydiina waxaa ka mid ah haddii aad ku guuleysatay lacalla madaxweynaha Soomaaliya maxaad ka bedeli doontaa waddanka maadaama uu waddanku marayo xaaladihiisa oo aan la wada soconno kulligeen
marka su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay maxaad ka bedeli ka dhaa waddanka Soomaaliya lacalla haddii aad madaxweynaha Soomaaliya aad noqotid insha allahu tacaala barnaamijkii aan soo sheegay baa waxaan rabaa inaan hirgeliyo insha allahu tacaala waddanka Soomaaliya oo idil daba iyo dacalba insha allahu tacaala labada gees labada koonaba allah idin sharfo idin karaameeyo maxamuud runtii waa qof qaali nagu ah jaaliyadda Puntland iyo isinka gudoomiyaheenu ka socdaa kala duwan baa runtii Bashiir la kulmayo marka musharaxa runtii gala Canada oo ayagana kula kulmayaan dhalinyaro gala Canada waan qabnaa marka ayagana runtii kula kulmayaan ma sha Allah waxaan rabaa waxaan ku soo xirayaa Sheekh Cabdiraxmaan bismillah alxamdulilah wasalaatu wasalaam horta raalli ahaado waxaa runtii farxad ii ah murashax madaxweyne waxaa laga yaabaa inaan hadda ka hor meeshaan imaanin xaflad siyaasadna aynan imaan igu arkin laakiin murashax Bashiir waa iga xigaa dadka annagoo yaroo horta waxaan ka soo jeedaa magaalo beledweyne la dhaho annagoo yar baan isgaranaynay maanta waxa ay keenay meeshan saas iyadoo salaadii markaan ka baxnay intaan salaada la gelin baan arkay soo galay kaas nin ila fadhiyo mashaayikhda macallimiinta kamid ah ninkaas Bashiir Amaan Soomaa asaga waa u dhahay salaada markaan ka baxay tamaa sunaysan toos baa ugu tagay garanay baa ku hori kelmadda aan rabay inaan maanta ka jeediyana waxay ahayd Bashiir anigoo iga weyn yahay laakiin dadkii ay wax soo wada barteen waa nin waaweyn oo siyaasiyiin oo garanay saaxiibo waaye Faarax Cabdiqaadir Cabdikariim Xuseen Guuleed ragga naga waaweyn anaga oo odayaasha ahay ayuu runtii ka mid ahay maktabad wuxuu wax ku soo bartay magaalada beledweyne ku timbo ku taalo geedka xamarka weynka hoostiisa ahay oo annagana arday quraan aan keenay oo macallinkii quraanka ay bilaabay uu ku dhameeyay marka runtii maanta meesha inaan imaado wax sahlan iima ahayn waxay yahay sharaf inaan la kulmo Sweden barnaamijyadu ka qabtay iyo Soomaaliyana waan muraaqabiinay waan la socday marka wuxuu astaahilaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya runtii khayr Allah siiyo magaciisa amaana wuu wataa lahu nasiibun min ismihi marka sharaf bayna tahay Toronto maanta la kulanno soo dhaweyno xisbigiisa Bashiir inuusan qabiil ahayn waxa kugu daliil ah iyo gobol uusan ka soo jeedin meesha uu ka soo baxay xisbigiisa fiiriga gobolada ka soo baxay Soomaalidu markuu hadda 4.5 ku ka hadlayo waa aragteen qaabka oo maartay loo sharxay runtii dadka u baahan oo kamid yahay إني لحفي قوي يحفظ لبدي علمنا قانون له مرة إن شاء الله تعالى خير بالله يسيو مرة أنا جقد عن الله هين أنا وجقد الدعاء هيد لكن ودعيسيه إلهنا خير كاكوا فجيو وأنا أقصد قبلنا إن شاء الله تعالى وأنا فرحت بقيت ما أنا كسر قبل ماشان on مارتي عن إماضة فرحت يراد بقيتها مركا مدحوين مرشح مدحوين soo dhawow barakallahu fiik dadka ku baahan yahay dalka ku baahan yahay sida gabadha ay sheegtay nabadgeliyada waa aham xaq cindana marba inaan ku sii dhaareen nabadgeliyadaas qofku waa inuu dareemaa marka socotay 2am gabdhaha waxay wataan vaanakooda wataan marka waa inaan dareennaa waddankanaga insha Allah saas oo kale khayr Allah ku siiyo odayaasha reer Toronto aad baan idin salaamay jazakumullah gabdhaha maamooyinka iclaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa soo xiraaya barnaamijka qofka argshili noogu culus oo runtii aad aan ugu mahadcelinayno oo mar kastoo loo tago oo la yiraahdo kaala nala shaqeey runtii waa qof mar kasta taagan maxamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay asagaa noo soo xiraayo su'aalna wuu qabaa inuu weydiiyo walaalkay waad mahadsantihiin ha iga bixina waxaan rabaa hal su'aala oo su'aal wariyanimo ah inaan weydiiyo murashax madaxweyne Bashiir mudane waxyaabaha aad ka hadashay waa arrimo qof kasta oo Soomaaliya waxgarada uu og yahay inay dhaqaajinayaan dawladnimada Soomaaliyeed sidaad u sheegtayna Soomaaliya waa dal ku nool gacan shisheeye waxaad gundhig uga dhigtay wanaagaaga diinta islaamka ee muqaddaska ah oo sida aad sheegtay dalkii dadka wuxuu qabanaysaa waa laga hor iman shisheeya ka hor iman maxaad isku difaacid ku dalgalaysaa waa su'aal aad u qiimo badan ruuxantii su'aal aad u qiimo badan diinteena islaamka hadda dagaal caalami ah lagu hayaa international
laakiin difaaca ugu weyn aan leenahay waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qaadirka ah maxaa yeelay ilaah baa ballan qaada wuxuu yidhi in tansurullaha yansurkum ilaahay diintiisa haddaad u gargaadhaan ilaah baa idin gargaaraya marka waaba qaacidda ilaahaya wuxuu kaloo ilaahay leeyahay kataba allahu laaglibanna ana wa rusuli ina allaha qawiyun casiis ilaahay wuxuu leeyahay ilaah baa wuxuu ku qoray kutubtu ku qoray aniyo rusushayda yaa guulaysanayna iyo xaqa guulaysanaya walaqad katabna fi zaburi min bacdi dikra ana alarda yarithuha cibaadiya saalixuun inta aayadooda qur-aan oo ballanqaad ilaahay u qaaday ma melin karaysid hal qaacidaa marka taalla annagu ma odhanayno ilaahayow adiguna difaac annagu isdifaaci mayno odhan mayno waxaan leenahay diinteenna waxay naga rabtaa niyad inaan la nimaano saafiya oo dhab ah oo xaqiiq ay naga tahay oo doonitaan sax ay naga tahay dabadeed waxaan ku daraynaa camal iyo shaqo camal iyo shaqo markaan ku darnana ilaahay gargaarkiisa iyo tawakulkiisaan leenahay ilaahay idinkiisa laakiin waxa ugu weyn oo kale runtii oo aan aaminsanahay inayna difaacayaan waa sidan waa kow xaqa iyo cadaaladda markaad xaq ku taagan tahay waad adkaanaysaa adaa adkaanaya ehlu baadilka ayaa laga guulaysta xaqa guulaysta muddaba ha qaadato hadday doonto waa labo waxaan ku kalsoonahay shacabka soomaaliyeed waa shacabka ugu geesisan dunida ugu goobsan dunida ugu sharafta badan dunida diintooda ugu jecel diintooda difaacda diintooda u wada dhinta diintooda intaas ilaashanayay shacabka soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay dhammaantood iyagoon kala harin boqolkiiba boqol xitaa 99 maaha boqolkiiba boqol iyagoon kala harin inay insha allah ay difaaci doonaan diintooda iyo sharaftooda inay ku dhaqmaan horuna marsadaan shacabka soomaalida insha allah tacaala aad u mahadsantahay halkaan caawi waxaan ku guddoonsiinaynaa walaalkeen musharax madaxweyne bashiir ammaan waxaan halkaan ku guddoonsiinaynaa shahaado sharaf ay jaaliyadda soomaaliyeed ay guddoonsiisay musharaxa iyadoo ah shahaado sharaf lagu soo dhoweynayo ujeedaduna ay tahay in aanu muujinno in aanu ku qanacsannahay mabaadi'dii uu noo sheegay iyo waxa uu aaminsan yahay waxaan leenahay musharax madaxweyne bashiir walaal soo dhowow naga guddoon arrintan